xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa kun afrina u sameeyay dhalinyarada aragga naafada ka isagoo u iibiyay dhar ay ku ciidaan ay uga qayb qaataan farxadda ama dabaaldegga ciida sida warkaan uu ku eegay wariyaheena Umar Xasan Cali si uu dhiirigelinayo garab istaag ugu muujiyo ardayda wax ka barata dugsiga Al-Bashiir oo ah kuwa aragga la ayuu xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dharkii ay ku ciidi lahaayeen ku wareejiyo ku dhawaad 50 qof oo isugu jira ardayda macallimiinta iyo howlwadeenada kale ee dugsigaasi kadib kulan lagu qabtay caasimadda Muqdisho oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho maamulaha dugsiga Al-Bashiir Abikar Xuseen Bashiir ayaa uga mahad celiyay xildhibaan Mustafa Dhuxulow sida uu mar walba u garab istaago dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan ardayda dugsiga Al-Bashiir waxaan caawa sharaf weyn ah in maxaan ku dhahaan u mahad celino guud ahaan hadaan nahay baahda iskuulka Indhoolaasha Al-Bashiir xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo laga soo bilaabo ama muddo 5 sano ka hor runtii iskuulka waxaan xasuusanaa berigii ugu horeysay in uu qado sharafeed la qaatay asagoo ah wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo wacyigelinta runtii maanta asagoo aan wasiir ahayn ah xildhibaan qaran in uu weli garab taagan yahay waxaana xusid mudan in ardayda aragga la ay runtii la xiriiraan si gaar ah haday u baahdaan maxaan ku dhahay xildhibaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yiriisow ayaa ballan qaaday in maamul ahaan ay xoog saarayaan taageerada dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba taasina ay kamid tahay waxyaabaha maamulka uu hiigsanayo annagana ka maamul gobol Banaadir ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa u taageeraynaa dadaalkan oo wada xildhibaanka waa dadaal u baahan ku dayasho qof walba Soomaaliyeed looga baahan yahay in uu dadka walaalaha ah runtii u baahan in la gargaaro xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ugu baaqay dadka wax haysta inay ka qayb qaataan caawinta ardayda wax ku barata dugsiga Al-Bashiir oo kuwa aragga la una baahan caawin ballaaran markaad runtii aad xiriir toos ah leedahay dadka baahida gaarka ah qaba waxaad ogaanaysaa imtixaanka Ilaahay iyo Ilaahay nicmooyinka siiyay iyo imtixaanka dadka oo gelina Ilaahay iyo qofkii ka mahad celiyay qofkan ka mahad celiyay intaba waxa mar walba u sheegay bulshada Soomaaliyeed in dadaal dheer loo galo sida dadka baahida gaarka ah loo warqabi lahaa sababtoo waxaan aaminsanahay waxna waa la bari karaa waana la awoodaan cunto iyo jiif iyo wax walba loo helo mudana gudoomiye ardayda Al-Bashiir runtii dhinaca deegaanka xawaa culays ka haysta laakiin waxaan aaminsanahay inaa garab ka sii doonto hadii Ilaahay raado maadaama culayskaas aan aaminsanahay adoo gobernatoorka gobolka caawana la joogto 5 sano ee la soo dhaafay ayaa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxa uu hormuud ka ahaa taageerada dugsiga Al-Bashiir oo ay wax ku bartaan arday aragga la iyadoo uu ka qayb qaatay dadaallo indhaha loogu fiiqay qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi wax ka barata Umar Xasan Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.